marlabaadka waxa mudan madaxdeena mustaqbalka iyo himiladeena fog u tartamaysa inay hagaajiyaan horteena waxa ka muuqda madaxdii xisbiga annagoon dhaliilayn Cabdiraxmaan Ciro annagoon dhaliilayn Faysal Cali Waraabe anigoon dhaliilayn Muuse Biixi Cabdi waxa loo baahay gaga lagu dheelayaa shacbigu ka kalsooran yahay waxa guul sheegan karaa cid ay u gartaan iyagu waxa jira gaariya ka hadlay waxa la dagaal sokeeyay reerkeena amaan xaashabuul sharaftu ku dhintay weyn oogay uf qabiilkaana leh wuxuu baa ku adeegta nin iskii kartidiisa isagoo cid ku tiirsan isku taagi karayni dib aynu ugu soo noqono kulmiye ma dhadhameedu ku nimi waa maya hadday cid inaga xigto adeeraday way joogan aniga lamaga wadi garanaysa waxa loo baahan yahay yaa farmaajo inaga celin kara yaanu halkaa u soo dhaafi karin aynu ku noqono qabyaalada gashay lafaheena markuu ka hadlayay runtii Soomaaliland ee abraartay amba geeriyootay mudane gaariya wuxuu yiri dulin iyo qaliin baa igu deedamaayo dolooshu isleeyahay midba meesha ugu daran ee dubkayga tuumbada degdeg looga suran karo manadigiga xoodo halkeen u socono meela socotaan manadigiga xoodo duumadii qabiilkiyo maandooriya jira damanaha sidayda daciif loogu tagalgalo damqashada ka biya waxaynu u baahanahay markii ay dalka inoo xoreynayeen inaynu islaam baa waxay u timid inanteedii oo la kufsaday ayay saldhiga ugu timid waxay tiri taliya dhama wiriisow inanteedii waa la kufsaday waa la taataabtay maxaa la yeelay waxaasay ka damqadeen oo ka dhiidiyeen waxa halkan jooga Sultan Qureesh oo laga doonayo inuu noqdo bartii lixle ana waxaan buuxinayaa halkii koodbuur waa maxay hadaba marka la doonayo ummad inay dhisanto saddex qodob ay ka horumaraan dalka horumar development hadaad maqasho waa saddex marka cudurka caafimaad loo helo ku filan jahligana cilmi loo helo gaajadana ummadda darag looga helo ayaa loo odhan karaa dal uu horumaray ibn aadanku hadday eegaan waxa ka dhiman ma horumaraan waxay qabsadeen daasada iskuulka lagu dhigan jiray maantana way dhameystireen ilaa heer jaamacad inaan yaro master qaatayba agaasimo aanba wasiira waa nabadda in u dagaalanay taasi waxa loo baahan yahay dalka marka cid loo dhiibayo cid soo bislaatay Muuse maaha nin wax loo sheego ninkii balaayada soo dhadhamiya ayaa dalkiisa iyo maxasiisa ka nixi kara hantu way farabadantahay hal erey baa lagu xanta ar erey labaad u soo hela bal beenaalayaasha u sheega ar erey labaad sabankii dagaalada dirintii iyo colaadaha fulihii diboode dibadaha u dhoofiyo geesigii ku daafacay dadka qoriga saartay miyay doorkan maanta isku darajo helayaan soo koobo waxba la fogaan midnimo horumar walaalnimo Soomaaliland hal loolata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا وضني ما نكسب بحنا حبنا وين وضني كسب بحيواننا مركاين وضني واحد كسب بحنا هل قضب كسوح ويان مسؤول كي حسبك وضني وحنا نقضي مسؤول شل عسام مركا واحد سلق عضني إن دمان دلني يرادي أن سلطان كوها إن أنا حسبي كل ميان تاجرهم وشنو هوجان شل عسام يا ترى شل عسام با شرب كاتورتا waxaan u sheegayaa qoliyaha iyaga bariga Hargeysa ee galbeedka Burco ee lahaa beesha galbeedka Burco xisbiga kulmiye dhalinyarada kuma jiraan xirsi Cismaan baa hogaaminaya oo anaga maanta soo galay Muuse Biixi oo abti waxaan ka ballan qaadaynaa
haddaanu nahay dhallinyarada garxashiis inaan hiil iyo hooba kula garab istaagi doono maanta farmaajo markuu far taago ninka fartaa jari kara waa mujaahid muuse biixi cabdi waxaan u sheegayaa dhammaan dhallinyarada somalilan in caqligooda muruqooda iyo codkoodaba aanay ku luminin ballanqaad xisbi mucaarida oo madmadow ku jiro inuu helayo iyo in kale dhallinyarada waxaan kula dardaarmayaa ninkii waxayuunba wax ballan qaada xisbiga kulmiyo soo raaca waa maxamuud cabdi axmed magacaygu ugu horayn waxaynu u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala iskugu keenay xafladdan qiimaha iyo qaayaha leh mar labaad waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa hoggaanka xisbiga kulmiye wasiirada xildhibaanada madaxda kale dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga bahda saxaafadda dhammaan garabka dumarka iyo wixii aan ka tegeyba halkan aad iyo aad baan uga salaamayaa marka hore mar saddexaad waxaan doonayay inaan dhowr qodob halkan markaa aan ka idhaahdo waxa u horeeya anigu waxaan ahaa xubin official ah oo ka tirsan central committeega xisbiga waddani waxaan maanta halkan ka caddaynayaa oo aan kaga dhawaaqaya anigoo miyirkayga iyo maankaygaba qabaa inaan iska resign gareeyey ama aan iska casilay xubinnimadii xisbiga waddani isla markaana aan si rasmiya ugu soo biiray xisbiga horumarka iyo midnimada ee kulmiye mar saddexaad waxa weeyaan iskamaan iman oo dee iskamaan soo qiiroon dadku waxay isleeyihin malaa waa inan yaroo dee waa qoladan iska kolba dhan u yaacda waxa weeyaan anigu study baan sameeyey daraasad baan sameeyey daraasaddaa waxaan ku sameeyey xusbiyada qaranka jira waxa weeyaan findingskii ama cadaymihii ii soo baxay wuxuu noqday xisbiga kulmiye waa xisbi 15 jirsaday xisbiga waddanina waa xisbi 5 jira markaynu eegno da'da u dhaxaysa ama gaabka intaa leeg ilmaha yaree 5 jirkaa iyo qofka qaangaadhka ee 15 jirkaa keeba wax lagu aaminaa xaafad wax ku aamintaa waxa weeyaan waynu arkaynaa waxa wax lagu aaminaa qofka 15 jirkaa maanta halkan waxa fadhiya xisbi 15 jirsaday oo wixii uu qabtay intii uu xukunka hayay ay cad yihiin ay record garaysan yihiin wixii kale u qorshaysan ee political programkiisa ugu jiraana uu yahay mid aynu rajaynayno inagu soo socda waxa weeyi oo xaqiiqa maanta dalkani uma baahna cid weel madhan sidata oo dib inoo celisoo tiraahdo wixii hore waanu masaxaynaa annaga wax cusub idin wadnaa dalkani maanta wuxuu u baahan yahay halkaa uu marayo cid ka sii anba qaada oo kor u sii wada uma baahna cid wax cusub la timaada waxa weeyaan dadkan iyo dalkani uma baahna cid tiraahda xaggan aad u jeedaan way qaldantahay xaggan aanu idiin jeedinaynaa looma baahna taa xaasha waxaa loo baahan yahay mashaariicda dalka ka socota cid dhammaystirta oo sii wada wixii la qabtay ee waxa weeyaan jira ee cadaynu arkaynana cid sheegto ammaantaa loo baahan yahay maanta waxaynu ognahay xukuumaddani inta ay jirtay waxa weeyaan waa 6 sannadood iyo 5 bilood waayo sanadkii 2017 baynu maraynaa bishii shanaad baynu ku jirnaa waa 6 sannadood iyo 5 bilood waxay ka soo bilowday dalka from 2010 to 2017 6 sannadood iyo 5 bilood waxaynu gaadhnay meel aad u fiican oo caalamka iyo afrikaba laga majiirto meel aad u fiican baynu gaadhnay waxaynu ognahay in mashaariicada dalka ka socdaa ay yihiin mid ay bulshadu ku tiirsatay mid ay bulshadu ka mahadnaqdo iyo ka marakacday waxa weeyaan in la iska hadlo maaha in kursigan sidii lagu tagi lahaa laga fikra maaha waa in ummadda aad hogaamiyaha u tahay ee aad matalaysa waa inaad eegtaa maxaad u qaban kartaa waxa weeyaan leadershipka marka laga hadlayo stylist buu leeyahay waxaa ka mid ah qofka leadershipka ah ee hogaankii inuu vision leeyahay
waxaa halkan ka cad mudane muuse biixi cabdi waxa weeyaan fishankiisa iyo waxa weeyaan aragtidiisa maanta way noo caddahay horena waynu aragnay inta badan khudbadaha muuse waxaa ku jira dalka waxaynu ku dhaqaynaa waxa la yidhaha rule of law shuruucdu waa meeshay ka horumarto aad baan runtii uga ammaanaa musharaxa markan khudbadihiisa maqlo rule of law buu dalkan u baahan yahay in sharciga lagu soo celiyo بسم الله الرحمن الرحيم دمان تاغرياشا دغموينكا محمود هيبه يا محمد نوغه يا كويس تكمي يا قاعن لباح يا مسؤوليه حزب كلميه دمان وعليكم السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته marka hore anagoo maxaanay mas'uuliyiintii degmooyinka ugu waaweynaa ee xisbiga wadani waxaan leenahay anagoo wadani in badan baan la soo shaqeynay 3 sano iyo badh ayaanu wadan la soo shaqeynay oo aan islahayn wadani waxa weeye xisbi nool oo maxay tolay bulshada iyo dadka wahanan kara waxaan u aragnay inuu yahay xisbiga wadani xisbi la shaqeeyaba xukuumadda marka waxaan u aragnay haddaan nahay annagu dhalinyartii iyo dadkii maxay tolay mustaqbalka sugayba inuu xisbiga kulmiye yahay xisbiga qura ee xalanaya bulshada mar labaadna ku noqon karaya inuu waddanka hogaamiyo annagu uma baahnin qof hurda qof luloonaya qof maxay tolay iska jiibsanaya farmaajo iyo xukuumadaha ka jira maxay tolay koonfurta markaa waxaan leenahay guddoomiye muuse adiga iyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waad noo siman tihiin adoo qura ammaanta ma lihid ee waxaa leh xisbiga kulmiye oo dhan inta kula shaqaynaysa degmooyin iyo gobolladaba markaa waxaan leenahay annagu waxaan nahay mustaqbalkii degmooyinka waxaasoo dhallinyaraa iyo waxaasoo bulshada baanu kugu yeedhnay bulshada sidaad u qancin layd iyo sidaad u hanan laydba dee idinkaa xisbiga kulmiye laydinka baahanyayey bal u shaqeeya oo u sheega dee waxaad mustaqbal u haysaan 6 sano ee xukuumaddaas hiiraayo hayay waa la arkay waxay qabteen idinkana waxaa laydinka baahanyay wixii aad u ballan qaadaysaan oo dhaba oo aan ahayn dee hadal beena oo wax aad qabanaysaan oo cad oo marka maanta kursiga ku guulaystaan dee ciidamada kagama horraysee maxay tolay aad u sheegtaan tira war waxaan idin ballan qaadna waka